markasta markaa daacadahow daacadnimada lafteeda ayaa ku abaal-marinysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. waxaan ahay Cabdishakuur Maxamed Xarbi ku soo dhawow barnaamijka Baraarug. Bari waxaa jiri jiray nin geeda jira oo markaasi lahaa xoolo. markaa wuxuu xoolihiisa ugu jiri jiray faashuska lahaa geedaha markaas xoolihiisa ayuu siin jiray. subaxa ka mid ah sida caadiga u ahayd ay u soo shaqo tagay si uu xoolihiisa u siiyo geedihii uu jiri jiray. marka faashkii markuu gooyay ayuu xoolihiisa siiyay. marka faashkiina wuxuu gashaday jawaan weyn oo sitay. marka jawaankii ayuu jiiday asagoo jiiday marka waxa ka lumay faashkiisii. faashkii waxa markaa arkay inaan wadada maray yaro wadada maraya ayaa faashkii markaa arkay. inankii ayaa qaaday aabihii ayuu geeyay wuxuu ku yiri aabo waxaan soo helay faash. aabihii ayuu ku yiri aabo waxa jira qof aad ugu baahan oo ka lumay faashkan. aabihii iyo wiilkii ayaa soo raacay markaa waxay u geeyeen faashka boqorkii markaa tuulada ay deganaayeen haystay. boqorkii ayaa isaguna ciidamo ayuu diray si uu markaas u baadi goobaan qofkii iska lahaa faashkan. waxa markaa loo sheegay ninkii faashka lahaa in faashkiisu hayo boqorkii tuuladaasi haystay. ninkii ayaa u yimi boqorkiina wuxuu damcay ninkan inuu imtixaamo. haddii uu ku guuleystana waa abaal-mariyo haddii kalena uu ciqaabo. wuxuu u soo saaray faash dahaba. wuxuu ku yiri faashkan ma adigaas ka leh. markaa ninkii soo arkay ayuu yiri may boqor oo kana keegi maaha. haddana uu iska dhigay haddana faash kale ayuu soo qaado markaa silver ah ama sida afkeena Soomaaliga lagu dhaho qalin. markaa wuxuu ku yiri ma adiga kan ma adigaas ka leh. wuxuu ku yiri may kan keegi maaha buu ku yiri boqor oo kana keegi maaha. markii ugu dambeysay ayuu faashkiisu soo saaray oo ahaa mid maar ka samaysan. wuxuu ku yiri kan ma adigaas ka leh. ninkii intuu farxay ayuu yiri ha boqor oo kuwa kan keegi. markaa boqorkii ayaa la dhacay ninkan daacadnimadiisa. wuxuu ku abaal-mariyay faashkii dahabka ahaa iyo kiisii maarta ahayd. uu siiyay labadii faashba. markasta markaa daacadahow daacadnimada lafteeda ayaa ku abaal-marinysa. intaan ku kulmi doono barnaamij la mid ah waxaan isku dhaafayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.